ciidamada booliska Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta deegaanka Garowe ee gobolka Muruudojeex ka soo xidhay laba murashax oo xisbiga UCID ka sharax kuwaas oo sida ay dadka deegaanka noo sheegeen madasha ku qabanayay munaasabad ay ugu ducaynayeen waalidiintood haddaba mid ka mid ah odayaashii ku sugnaa madasha isla markaana ka mid ahaa guddigii qabanqaabisay xafladan oo aan khadka telefoonka kula xidhay shabakada wararka ee Wajir News ayaa nooga warramaysa wax u dhacay adigoo magacaaga ku bilaabaya anigoo Cabdi Cali Saciid waxaan ahaa odayaashii goobjoogka ka ahaa maanta qalin falki ka dhacay tuulada lagu qabanayay siyaarada uu ku qabanayay Taage Axmed Yuusuf oo u ducaynayay waalidiintiisii oo nin qaali ah oo loo jiray Axmed Yuusuf Saciid uu ka yahay marka aanu maanta subaxdii jeera soo qabanay aanu gowracnay waxaa noo yimid ciidamada biliiska oo qaybta loo yaqaana radio ayaa noo yimid dabeeto waxay anagoo midiyihii haysanaa ayay gaar naga qabteen waxay dhiga maxaa dhacay su'aashan ka soo baxay wax noqotay maxaa dhacay annaga og baydaano loo soo diray waxay dhacay dhiga midiyaha oo ka baxa neefafkeenu qalayni marka sidaan yidhaahdeen alkaa ku sugnaydeen murashaxiintu may joogeen markaasi waxaanu ku sugnay tuulada yar magaalahaas ee ka sarreysa mitirta jarabtii dacwada udhexaysa haye markaa dabeetana waxay yidhahdeen ka baxa oo anagoo hirbiyi gacfaraha kula jiday sanad naga saareen waxay yidhahdeen waa maxay shirkan haye waxaanu ugu jawaabnay waa duco waalidiintii loo ducaynayo wax shiro oo siyaasadina kuma jirto nin weyn oo caaqila ugu dhaartay oo ninkii taliyaha ahaa ugu dhaartay oo yidhi wallaahi bilaana ku jirin ya saye wax siyaasadii dabeeto waxaan dee nala cuntayba oo haddii ay washir jiro nala fadhiya markaanu cuntayna daliyadna haddii noo markay yimaadaan dee mar waan ka wada dareena meesha haddii wax dee looga qabanaya dee wiiliya la duubaya iyo wax siyaasadaysan haddaad aragtaana markaasi gaaraha falkaa geysanay markaa munaasabadda ducay ahayd oo qabtay murashaxiinta mid ka mid ayaa qabtay markan ay xadhigooda maxay ugu andacoodeen maxay ku qabsadeen waxay yidhaahdeen waad ololeyseen bay ay markii ay yidhaahdeen haye ama xadhigga amarkooda yaa soo bixiyey amarkaa ciddii soo bixisay mataalka kama sheegi karo haye laakiin sanad kasta ka hayno waxay yidhahdeen waxaa soo bixiyey madaxweynaha qabnaa markaas waxa ciidamadii amarka qabay ee xadhigga geystay ayaa warkaani siiyey inuu warkaani siiyey oday cabdi adu waxaad ka mid ahay odayaashii deegaanka leedihiin waa keenta xadhigga inamadan maadaama inay dembi faraha kula jirin maadaama meesha dhib ka socon maxaa keenay baa isleeyihin xadhiggooda anagu imika markaan dee yani maskaxda dib ugu noqono waxaanu isleenahay waxa sababay macnaha xisbi dee mucaarida ayaad ka sharaxan tahay unbaan anagu u aragnay wax kaloo hore oo de yani kale aanu u garanayna ma jirto marka alkaymiga hadda ku xidhan yihiin xaggee lagu xidhay markii ciidamada ay soo qabteen xaggee geeyeen markii ay soo qabteen waxay geeyeen saldhiga macalin haruun degmada gacan libaax miyaa degmada gacan libaax waxaad ka warantaa markii ay ciidamadu yimaadeen ay soo qabteen wax deegaanka shaqaqay ma ka dhacay waxaad kaga soo horjeedaan ma samayseen xadhigga murashaxee kale ah maxamuud iyo Taage oo sharaxan golaha wakiilada waxa ka dhacay markii askartiga iyo nimadii nimadii la kixiyey ayaa badda dhulka taabtay badda waxay yidhahdeen joojiyo ka qabta fiidka haye markaa dad bay nabada ku dhacdhaceen oo dadka ku dhaceen midaba xagga khatarta loo soo qaaday intee leeg ba ku dhaawacantay cid kale ma la xidhay cid kale lama xidhin laakiin 3 qof ayaa horta midba nabada gaaray mid madaxa ah qaar gacmaha ah qaar jirka kale kaga dhacay 3 qof baan aragnay ayaan anigu ka saaray marka waxa sababay isku dhicii shacabka iyo ciidanka miya isku dhicii waxa sababay xaligii ay meesha inay ka kaxayeen dadkii bandhada xabaa u qaateen bandhadii waxay yaalabulkaadii waa dishaa dawladeenu waxba yaa la tuurinaya adigoo odayaashii deegaanka oday cabdi maxaad xukuumadda faraysaa fariinta u diraysaa waa maxay maadaama xukuumadda waxaan farayaa dadka in loo cadaalad falo oo aan sharciga lagu tumanin baanu faraynaa haye oo xukuumaddan dee waalidiinta hoskeedii iyo siyaaradii loo dhigayay kasoo horjeeda kala garan la goor la ololeeya iyo goor la ducaysanayo iyo goor musharaxu wax qabsanayaba xukuumadda waxaan leenahay dibaas ugu noqoto si dhaqsa oo siyaasad waxba kama gaabinaysa imika saa ay ku socoto waxaad ku sugan tahay Garowe soo ma meel sheelada magaalo cad baan ku suganahay halka ay ka dhacday mushkiladu halka ay ka dhacday aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ku salaamayaa